wakaalada warbaahinta ee deegaanka Soomaalida ayaa xaruntii ugu horeysay ee jigjiga ka baxsan ka daafurtay magaalada Diridhaba. Munaasabada daafurka ee stuudiyaha cusub ee maamulka magaalada Diridhaba ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida Mudane Ibrahim Cusmaan Farax, madaxa xafiiska xisbiga barwaaqo ee Soomaalida Injineer Maxamed Shaale, marayaha wakaalada warbaahinta ee deegaanka Soomaalida Mudane Cabdilaahi Xuseen, wasiiro heer deegaana qaar kamid ah madaxda ismaamulka Diridhaba uu kamid yahay madaxa xiriirka dadweynaha ee xafiiska xisbiga barwaaqo ee Diridhaba Injineer Cumar Ducaale, marayaha wakaalada warbaahinta ee maamulka magaalada Diridhaba Mudane Suleymaan Cali, xildhibaano, odayaal dhaqameed, kooxaha dhaqanka iyo kooxda Baamboyda. Waxaana si wada jira xariga uga jaray madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida Mudane Ibrahim Cusmaan Farax, madaxa xafiiska xisbiga barwaaqo ee Soomaalida Injineer Maxamed Shaale iyo marayaha wakaalada warbaahinta ee deegaanka Mudane Cabdilaahi Xuseen.